inaan dekado inta la eg iyo infrastructure inta la eg inaan sameynay oo aan annaguna isla sidii hore u fakarino wax dhici kara maaha waa inaan fakirkanaga bedelnaa waa inaan caqliganaga bedelnaa waxaan maqli jiray reer gaalkacyood iyo sharciga ayaa u garnaqi doona awal ma aanan fahansanayn laakiin hadda waa soo xaqiiqsanaya maalinba maalinta ka dambaysa nabadgelyo la'aanta waxa noogu wacan oo ugu horeeyana waa dhulka weeye dhulka ugu daran waxa maanta la isku leynayo oo loo taagan yahay lagu baabay dhul weeye wax kale la isku waagor geel baa la isku leyn jiray hadda dhul baa taagan oo la isku leynaya gaalkacyo waa magaalo madaxda gobolka Mudug waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ee ay wada degaan beelo Soomaaliyeed oo kala duwan gaalkacyo waxay leedahay muhiimada dhaqaale ayadoo ay ku kala gudbaan badeecadaha ganacsiga ee u kala socda koonfurta bariga waqooyiga Soomaaliya iyo waliba kilinka shanaad ee Itoobiya gaalkacyo iyo waliba guud ahaan gobolka Mudug waxaa astaan u noqotay colaado sokeeye colaadahaas oo inta badan ka aloosi jiray qaybsiga khayraadka dabiiciga sida daaqa iyo biyaha dhaanka isla markaasna u soo gudbi jiray magaalada gaalkacyo ciidamada ammaanku hadda ay ka howlgaleen oo dhismihii joojiyeen oo kala kaxeeyeen dadkiina ayagoo dhex taagan baa lagu xabadeeyey ciidankii ammaanka oo maryahoodiina xabadii baa gubtay baabuurtoodiina rasaas baa ku dhacday ciidankii ammaanka meesha joogay ciidan ka tira badan oo labada dhinac ah baa meesha isku qabsaday waxaa la rabaa dalkeega inaanaan waxba u qaban waxaa la rabaa inaanaan waddooyinka wax ka qaban iyo horumarkii waxaa la rabaa inaan ammaanka wax ka qaban waxaa la rabaa inaan doorashooyinka iyo maamul daadejinta aanaan waxba ka qaban waxaana la ku mashquulinayaa maalin walba dariiq iyo dhul baana la ku mashquulinayaa waxa isaga keen khaldamay falsafadii miigaan ku joognay iyo in magaalooyin waaweyn la sameeyo isla caqligii inaan ku noolaano oo magaalooyinka waaweyn la soo galno wax dhici kara maaha waa in isbeddelaa dhulka oo aad cilad uga taagan yahay isqabsigiisu badan yahay marka in dhulka loo sameeyo naqshadayn oo dhul walba la yaqaano qof kale iyo meeshuu ku yaalo iyo kii dawladu leedahay iyo kii shacab leeyahay si loo kala ogaado waxa kaliya furdaaminta waa waxa waaye in la helo naqshadayn dhulku leeyahay waxaad ogtihiin mashaariic waaweyn baynu inagu qabsanay ilaahay baan ugu mahadinaynaa aan ciduna ina siin World Bank ina siin IMF ina siin African Development Bank inoo maalgelin xooggeena iyo maskaxdeena iyo caqligeena aynu ku maalgashanay waxa marka dadka caqligiisii noqday wiil qorisi tamaaro looma heli karo wiilka waligiis adduunka intii la joogay wiil qorisita iyo wiil dhiblowihi waa jiray laakiin wuxuu lahaa aabe wuxuu lahaa caaqil wuxuu lahaa isin wuxuu lahaa maamul يعني مشاكلات كتير أو أن لا كلنا أنك دولة ده أو لا ياب كله لا واحد تأويل كنوع عاسة نبدون كيسا صار راعية وحصار دولك لا يسوى هذا كور على دول الجاس ما وشيء لعقوا مرتان لعق دولك كقاعد عنشور تدك أشرعية قفل بأشرعية وقتنا وقبتها وإن لا سمايا وقت جوان أو قفك دولك يلان كرو هدانو دي سلوا بدلو ممتلكات عامل لو بدلو ميلان أضياشة كونستان ميل كوين والوالان كويسنو ميل أجنتنا كوكرسنو استيشنو ميل واحد لو برتو ده كان سالس كما هنكرو أنا إسلاه هو عقبة وين أو قبل ككتشرته إنه مشاريع وين سميناي ربنا إنه مدي ولا هالك يسوق إنه مدو ضد بدنا حد عندنا إنه لا سود دجان horumarka iyo waxa isku xiran dad badan in la helo oo dhacaya oo dilaya oo kufsanaya markii dawladdu soo raadiso wuxuu galayaa dhufays reer hebel la yiraahdo waxa imaanaysa marka nin dilay baan raadinaynay
boqol nin inaan madaxa ka jarro boqolla annaga naga dhimato baa horta imaanaysa waxyaabahaas waxaan isniraanaa markay aan isu soo taagto baa isimadu waxay yidhahdaan u kaadiya qofkii qof dila ha la dilo hore ha laga toogto hana la saxiixo isimadu ha saxiixeen nabadoonnada ha saxiixeen dawladdu ha qaadato wareer aadan oo kala noqda hadhow adhiidada reer aadan maayo anugu ha u malayna reerkayga yahay ammaanayo sida reer aadan noqda ninkiina nin dila keena ha la dilo kii laydinka dilana kii dilay dalbada oo dila sidaas baad nabad ku helaysaan waana sharciga ilaahay unsur akhaaka zaaliman oo madluuman baa la yidhi haddaan laaluush qaadanay haddaan eexannay haddaan isku kindirnay inaad tidhaahdaan stop jooji in aadan dad waxa ka shaqaynaysa lama rabay inaad tidhaahdaan taasaa xalaal ah aakhiradaydan u wanaagsan adduunkaygana u wanaagsan